السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. labada geed ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo dardaarmay isticmaalkooda lagana yaabo inaad in badan maqasheen ama akhrideen ee la yidhaahdo asana wasanuut sida xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku cad calaykum bisana wasanuut rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay xanuun kasta dawo ka yihiin marka laga reebo geerida. Haddaba labadan geed ee asana wasanuut, geedka hore ee sanaa waa geedka Soomaalihaan aynu u naqaano salalmaki, waanay dhici kartaa inaad magac kale u taqaano gobollada qaarkood. Haddaba geedka labaad ee asanuut maaha hal geed oo keliya, waxaanu ka kooban yahay ilaa 4 geed iyo ka badan, kuwaasoo kolba kii kuu suuragal ah aad isticmaali karto. Dhirta soo hoos gasha magaca sanuut ama dhirta uu ka kooban yahayna waxaa ka mid ah shibti oo ah geedka hadda idin muuqda, iyo yaansuun oo ah isaguna geedka idin muuqda, karaawiye oo ah ka hadda idin muuqda, iyo shamar oo isaguna hadda idin muuqda. Waxaanad u isticmaali kartaa labadii geed oo aad daqiijisay. Labadaa geed markaad daqiijiso waxaad diyaarsanaysaa koobkaas oo aad ku shubtay biyo diiran, kadibna waxaad ka soo qaadaysaa labadii geed midba malqacad barhkeed ama ka yarba. Sidaasaanad labadii geed isugu walaaqaysaa waanad cabbaysaa. Dawo inay yihiinna waxa inoogu filan xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Mahadsanidin.